Somalidu kade naratay kabaxday qoftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kade naratay kabaxday qoftay kacday jabtay oo kabatay Sarila wakan, Nagari wakan, Misukane wakan. Habiba kerjaya, Ika Sarila wakan, Nagari wakan, Misukane wakan. Dari kamparina yo karama musarnaye. Kusahib dan kala kubola barek tegukalla hadi Elohia aha hadi Elohia aha dari kamparina yo karama kusarnaye kame yanako dari kamparina yo karama kusarnaye وحقاق كلنتي وناكسن قدهم بدوينها شرفت بدن كسو قيب قال حفلة على مسارك اللوجو على مسار يو قدوميا جالية صومالية دلك كندا مدن يحيى حسن ميري مدن يالي مرو ينبه وهبين كلا أو فرحة له وهبين كلا أو تورنتو يكندا مدودي وهبين كلا أو جول وجودهم بقرب جوكت الصومالي ذا دلك كندا وهبين أي ضدك الصومالي ميل كستو جوجان تاريخ قريب دونتو بربر نباتو يوليبا waxyaabo badan oo qaxa aan dalkan ku nimid sababay lagu soo afjarayo waa habeen ay reer Canada midoobeen waxaan marka hore u mahad celinayaa guud ahaanba dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan caleemasaarka ah ee lagu caleemasaarayo mar kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Canada mudane aqoonyahan Yaxya Xasan Mireh oo ka mid ah qurbo joogta Soomaalida ee dalkani
waxaad ila soo dhaweysaan oo aan jeclahay si diiran inaad u soo dhaweysaan xildhibaan NDP MPP Laura Albanese oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Ontario ee dalkeenan Canada. barnaamijka waxaa xiriirin doona haddii allaha awoodda leh ogolaado saaxiibka Yusuf Alkawneen UK aniguna waxaan ahay Maxamed Cabdullaahi Xasan waxaan u mahadcelinayaa guud ahaanba saxaafadda Soomaaliyeed telefishinka caalamiga ah Universal Ali Bakri iyo Mahad Carabow waxa kale oo aan si diiran u soo dhaweynayaa telefishinka muuqaalka Soomaalida iyo Maxamed Daahir Xasan aniga waxaan ka socdaa telefishinka caalamiga ee Somali Cable waxaadna ku daawan doontaan haddii Allah awood leh ogolaado barnaamijkan oo dhan barnaamijkayga toddobaadka iyo Toronto waxaan idin ciyaari doonaa suugaan kala duwan oo aydan dhawaanahan arag waxa inala jooga kooxda hidaha iyo dhaqanka Hamilton Ontario oo ay hogaaminayso Faadumo Aadan Fantey waxayna la joogaa oo caawa maaweelo kala duwan oo xagga suugaanta ku soo dhaweyn doona gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed aniga oo ku hadlaya guud ahaanba magaca saxaafadda Soomaaliyeed aan idinku soo dhaweeyo mar kale saaxiibkay Yusuf Alkawneen UK madaalaha reer Toronto Yahya Hassan Mire Hambalyo idinkana waxaan idin leeyahay thank you for your coming I would like to call waxaan jeclahay marka hore inaan u yeero Laura Albanese waqtigeeda ayaa qaali ah ay noo soo hortay waxa lagu jiraa waqti holiday so Laura I'm going to call you first so I'm going to let you go sooner welcome please Laura Albanese MPP of York Southwestern Thank you. Thank you, and it's really a pleasure and an honor for me to be here with all of you tonight to celebrate with you. I understand. Congratulations are in order now I'm going to try this, okay? Yahya Hassan Mire? Okay. Happy New Year to everybody. This is a season when we get together and we share together. We try to enjoy each other's company. And it's so nice to see so many men and women and mothers and youth, so many young people here this evening, all gathered. And I know that this will be a memorable event and a memorable occasion for all of you. I want to tell you that I feel like a sister to the Somali community and the Somali women. And I am very proud to represent in the area of York Southwestern many representatives of the Somali community. I know you are a growing community, a very proud community, a very vibrant community. And you have a lot of aspirations for your youth, as you should. And I am also privileged to share the representation of the area of Toronto known as York Southwestern with the first Somali that has been elected at the federal level, Ahmed Hussein, and I understand he will be here later. So I'm here to serve you anything that you may need and that I can help you with at my office. I am at your service. Please do not hesitate to contact me for whatever you may need in the future. And to you, I say all the best wishes, and inshallah, we will have a good 2016, a good future for everybody. Thank you. Safi an hello sagotiyo Laura Albanese thank you very much waxaan jeclahay inaan u yeero khadar guun waa saaxiibkeen waa yahay saaxiibkiis waa community leaders ku kamid yahay Somaliland laakiin caawa waa la wada joogaa kulligeen Soomaali weyn khadar guun ka soo dhawow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدنيال iyo marwooyinba dadkiinan sida sharafta looga soo qayb galay xafladan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ee qaaliga ah halkan maanta waxaan u imid walaalkay Yaxye Xasan Mire Yaxye waxaan ku leeyahay hambaliyo waa sida uu ka dhawaajiyay UK ama wiilkan abtiga wahay xafladan maanta meeshan u nimid ma aha mid siyaasadaysan siyaasadu way ka dheertay siyaasadu waa halkaayna keentay waa ta qaxoontinimada baday waa ta qabiilka inoo xambaarisay waa ta tafaraaruqa keentay Soomaali deegaamadeedu way badantay anigoo qura Somaliland baan ka soo jeedaa kilika shanaad ee Soomaalida ismaamulkana waan ka soo jeedaa ninka labada deegaan la baanahay laakiin maanta halkan uma iman siyaasad waxaan halkan maanta u imid inaan walaalkay u hambaliyeeyo anoo ugu hambaliyeynaya hawsha culus ee maanta uu xilka u ritay uu inaga furtay Soomaalidu waxay tiraahaa oodi ab ka dhow maanta walaalkayga Somaliland ama Hargeysa jooga waxay iga dhow Yaxye maanta magaalada igula nool intii hadba meel joogta ayaa is aasta weedi ka arkay ama Isa ku dhinto ama wasa ku dhintay masaajidka Khalid bin Waliid bin meedkeena ku wada aasna nolosheena inteena noolnayna inaan meel wax ku wada qabsano Soomaha haddii meelkiiba meel ku wada aasanayno taa maxaa keenaya waa danta iyo meesha qureen wada degan Soomaha habeen iyo maalin baynu wada joognaa wax wada cunaa dad walaalaa baynunay saddex shayna wayna wada saareen mar Soomaalinimo ayaynu ku wada suntanahay mar waxay naga dhaxeeya dhiig iyo dhaqan bay naga dhaxeeya marna dan bay naga dhaxayso meel baynu wada joognaa haddaba anigu waxaan leeyahay kii maanta halka siyaasad u yimidow horta waad qaldantay albaabka ka noqo kii qabyaaladu yimidow horta waad qaldantay halka ka noqo waayo qabiilka iyo qarannimadu isma qaadaan Soomaalidan arag dariiqada wanweyga ah dariiqa wanweyga waxa haysta qarannimada qaladna waxa uu soo galay qabiilka haddii laba gaari wanwey isku soo galaan way isduqeeyaan Soomaha Soomaali waxa baabiyo wacanka qarannimadii oo wanwey haysata uu qabiilkii ka hor imanaya halkaas ay ka bilaabmaysaa Soomaali waa wada laandheere iyada ugu lacag badan iyada ugu qurux badan qabiil walba isaga ugu wanaagsan isaga isugu fiican isaga ay ka dhasheen aftahamadu isaga ka dhasheen qabiil walba hadda tiraaho iyo wanaagsan anaga ku oranaya taana waxa keenaya waa damaca xun ee qofka ku jira anigu waxaan aaminsanahay caawa ninka walaalkeena raggii hore markuu hawl adag gelayo ee mas'uuliyadu beel ka qaadayo ninka magtiisa meel la dhigi jiray oo looran jiray magtiisa la sii qadimo يعني رجيجي اللي قطعها وعجرنا يا مكتيس أنك على دي بيشري سبحان الله ما هي تشري رجعنيمو دنتا موجي بيكوشرتا وجدتنا وحويه رجعنيمو دنتا موجي بيكوشرتا نينك الرجي مركود قاعدين جود وحكتة يا تيسي عيال كيسي بيلابيا كيدي كيرك اللي هذا بيلابيا وحورنا يا دنتا جود ما أنت ولا الكي وحن ليه هاي حل بعض قاضي نين حل قاضي إيد قاضي waxyaxyo maanta waxa soo Soomaali ay kaaga doorteen maanta ay munaasabada kuugu yimaadeen hoteelka quruxda badan la kuugu kireeyeen inaad awrka u rarto inaad daacad u noqoto in ka buka ka ishara islaanta socoteen waxba garaneen inta badimadooda ay caawal ugu saarada la wareegay waa inaad go'aashaal ka dhigataa waa inaad dhexda ka xidhataa yaxyo waa inaad noqonin ka daala haddii man state degree tahay iyo haddii winterku ku marayo jilbaha waa inaad soo gudaa taasaanad heli doontaa dheefteeda iyo aakhiraba waxaan kaloo kaala dardaarmaya ha noqon sidii raggii hore boqolka xafiis noo furay Somaliland Canadian Somaliland futuud ee mid walba halkiisa ku saqiiray marka waxa loo bixiyay markii dambe xafiiskii hebel iyo xafiiskii hebel waxay noqoto shaqooyinkan aan ku xoogsanno kale inay ku xoogsadaan oo marba MP yar nagu sawiraan iyo qof ay keenaan oo yiraahdaan waxaanu keenaynaa barnaamijyadii yaryaraay wax ku guran jireen summer campka iyo maxaanku waxaas looma baahna waxaan u baahanahay xil buuxa anigu waxaan nahay dadka ku nimid waa kula garab taaganay xabaal kugu hubsan mayno kaaga tagmayno wixii aad nooga baahato intii kula qalanta ee boardka aad uga baahantay kala bax ninba ninku ka kartida badan yahay kala bax ninba ninku ka daacadsay kala bax iyo gabadhiba gabadhii ka wanaagsantay qabiil ha u eexanin
haysu miisaamin 4.5 meesha ka saar ya jireen Djibouti iyo reer Somaliland hanoo kala gurin anuu Soomaalinimada waa taasoo calanka gacantaas ay ugu xidhantay laakiin dee qof kasta oo Soomaaliya walaalkay wuxuu baahan waa u qabanaya Somaliland waxay halkii laga asaasay Soomaalinimada calanka blue game kana la ku cabsiyaana waa halkii laga taagay Hargeysa laga taagay marka waxaan kuu sheegayaa kufan waxa tahay magaca kor u qaad anigu dardaarankii afkii ummadoo dhan baan kugula hadlayaa hadalkana waxa la igu qadimay inaan sii rito midkayga xasan ganay abwaankeena waxa laga hayaa Soomaaliya qabiilkii qarannimadu waa laba aan isqaadi karin oo waa qadiye gaajo haddii aan la kala qarin iyaga isqaribeeyay taasi waa taa marka waxaad walaalayaal yeelaysaan nin walba qabiilkaaga hoosta iskaga hayso laakiin waxaad ogaataa waxa tahay isugu soo istaaga isku maamuusa aroosyada isugu yimaada meydkiina ku wada aasta hadhowkii doonayo Puntland taadi diyaaradda u raac anigu Somaliland taadi diyaaradda u raacaya laakiin intii halka joogno midnimaan inoo ogahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsanid haddana waxaan jeclahay inaan u yeero koox hiddi iyo dhaqan ah maadaama dhowr qodbood aan dhageysanay kooxdaas waa dhalinyarada yararka ah ee halkaas fadhiya waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo maamada wada oo la yiraahdo Faaduma Aadan Faantooy waxay ka imaadeen Hamilton halayla soo dhaweeyo Cabdi Xubey
يحيى لو دعيو إيش إلهي كقبت مدحدي بريت إيمان تبوا أسيا السودوي يحيى أنا لوريغا دور سومالي هل هلسكو دوبنا هذا قبيل كفنك السوداني أنا قاعد لا يابان فنكنا هلو دعيو سوماليا
madaxdeena sharafta leh soo dhowaada waa ninkii macaanka ahaa waa jecelahay adnaa loriga dhoor kaamiristayaalka bakri soomaali weyn maxamed miyagas alabaashaal waryaacooda oy CJ ururin oo hidaha iyo dhaqanka oo ayagana mar kale soo noqon doona waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan bahda miidiyaha saaxiibkii cali bakri iyo mahad carabow universal TV maxamed cabdullaahi Somali Cable TV maxamed daahir muuqaalka Soomaalida iyo dhammaan bahweynta miidiyaha Soomaalida oo idil waxaan leeyahay waa mahadsantiin waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka xuso dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay xafladda oo iyagana aan halkan jeclahay inaan uga mahad celiyo oo qaarkood ay joogaan qaarna ay soo socdaan magacyadooda ma tirin karo laakiin waxaa ka mid ah saaxiibkay Yo Baby oo dhinacayga bidix fadhiya waxaan kaloo jeclahay iyagana halkan inaan uga mahad celiyo marti sharaf qiimo leh oo nooga yimid magaalada Washington DC ee caasimadda waddanka Mareykanka waa Bashiir Abikar iyo Cabdilaah Maalinguur oo ayagana aan jeclahay inaan mahad celiyo aan u yeero Baashe Cali Baashe oo ku hadli doona dhammaan bahweynta isboortiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto Baashe wuxuu ka mid ahaa dadkii organizerska xafladda soo diyaariyay waxaan leeyahay ku soo dhawow Baashe aad iyo aad ay u mahadsan tahay Yusuf Konen UK caawa waxaan fursad u helay marka ugu horeyso in aan podiumka soo istaago oo la ii waco barnaamijka caawa iskugu nimid halkan oo ah taageeridda walaalkeen Yaxye wax yar haddaan ka taabto waa wax muddo soo socday waaye wax shalay iyo bishii hore bilowday ma aha waxaa badankood lagala tashaday isteediyada haddii ahaan lahayn US ama haddii ahaan lahayn gobollada Canada wuxuuna noqday markii la wada fiiriyay ninka ugu maaragtay firfircoon oo u yeeshay in maaragtay jaaliyadda Soomaaliyeed uu hogaamin karo ayaa loo wada arkay taas darteed ayuu ku mutaystay caawa inaan halkaas ugu nimaadno oo aan maaragtay musharaxnimadiisii aan ka qayb galno anigoo ku hadlaaya magaca sportiska magaalada Toronto ama iraahdo Canada oo dhan waxaa sharaf weyn ii ah anigoo mathalaya sportiska inaan caaw halkan soo istaago oo aan u mahad celiyo u hana hambaliyeeyo walaalkay Yaxye mas'uuliyadda weyn oo loo dhiibay annagana Yaxye waxaan ku ballan qaadayna haddii aan nahay sportska in aan garabkaaga istaagno oo wax alla wixii nalooga baahdo dhankeena ah inaan maaragtay ka soo bixi doono haddii Ilaahay yiraahdo ayaan rajaynaynaa insha Allah waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha quruxda badan ee halkan iskugu yimid caawa in ay taageerada nala sameeyaan oo walaalkeen taageereyno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh banaadir waxaa jooga caawa founderkoodii oo aan jeclahay ma jeclayn magaciisa la sheego iyo in loo yeeray intaba uu hadlo markii laga hadla run ahaantii waa shakhsiga ugu muhiimsan ayaan oran lahaa jaaliyadda naguna taageeray kana mid ah mar kastana taageeray isboortiga iyo dhammaan dhallinyarada oo dhan iyo wax kastoo wanaag oo la samaynayo Cabduqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye waxaan jeclahay Nuuraaye haddii uu iga ogolaado inuu yiraahdo laba eray oo hambalyo ah oo uu soo koro ayaan jeclaan lahaa Nuuraaye ma jecla inuu hadlo run ahaantii laakiin waan ku qasbay caawa Nuuraaye ku soo dhawow Cabduqaadir Muuse Nuuraaye
السلام عليكم. هذا أمال سنتين محل أي ضمان دتك ماشي سوقي مذي وحن أدو فرحصنا عوضة إنا متقنا ماشي سو استاجو because of ننا نجعلها ماشي جوجو لا يجي سو استاجو نجعل إنا نمل استاجو أما أنكادلو لكن عوضة وكو قصبنا هاي because وحاجو هليه ننا أدو جعلها oo dad jaceelka iyo Soomaalinimada aan soo koobi karin waxa Soomaal u qabto waxaan leeyahay saaxiibkay maxal leeyahay Ilaahay ku fududeeyo Allahna kula garab galo maxal leeyahay waxaan leeyahay oo kaleentood maxal leeyahay xadog waa badan yahay Ilaahay ka qabto محل وحن لا صاحب قوليسو ما شاء الله هذا هو مال سنتاي thank you very much إني كانوا مال سنتين thank you mahadsanid nuuraay waa shakhsi aad u qiimo badan waa ganacsadaha kaliya ee magaaladan maqaayadiisa dadka xanuunsan ay kaga cunaan free waxaa leeyahay khayr badan Allah ku siiyo shakhsi aad iyo aad muhiim u ah aan u yeero Shamso Ibrahim Bolis Shamso waa maamada magaalada waxaan leenahay Shamso adigana yoosay bismillahir rahmanir rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان Soomaalida sharafta leh oo Soomaalinimada jecel oo caaw meeshan wada fadhiyaan rag iyo haweenba aad u maadsan waan soo dhaweynaa ugu horeyntii waxaan u hambalyeeynaa walaalkay Yaxye oo nin dhalinyaro aqoon leh cilmi leh Soomaali fiican oo sharaf leh aad iyo aad tan labaad waxaan caawo farxad weyn oo aan rajaynayaa farxaddeedaas inay sii socoto inaysan noqon short term iyo long term noqoto Soomaalida reer Toronto oo caawo bilowday 2016 change for the real Somali isku imaade ee hol Soomaali noqotay oo after 25 ama 30 aan u maleynaa intaan joogno soo caaw soo xustay inaan hal Soomaali noqono macnaheedu waxay ku sheegaysaa waa la karay waa la bislaaday waa la dhibtooday hal wax waa tari weynay hal far kaliya la dhahay fool ma dhaqdo Soomaali way ku maahmaahday in ay hal far wax tareen markii ogaadeen hadda isku imaadeen waa wanaag waa wax qurux badan waa wax sharaf badan aaw farxadeeda aad ay u buuxdaa waxaan ugu mahad celinayaa raggii soo abaabul arintan aad iyo aad ugu mahad celinayaa because rabsho iyo fidno iyo dib raggu ka yimaada Canada iyo barafkan ragaana keenay markaan hadda feminist noqdo oo hooyo noqdo Canada iyo dhibkan iyo barafkan iyo North America dabadeeda waxaana keenay rag markayna keeneen wayna la shaqaysan waayeen caruurtii wayna la korsan waayeen wayna sii goobeeyeen Soomaalinimadan iyo si kala farqiyeen maqaayadii camirteen wixii wadanka looga soo carray noogu abuureen barafkii dhaxdiis mucjiso waa dad baraf joogo oo rafaad joogo oo silac joogo kuwa Soomaaliya jooga haddii isdilaan qorxay haystaan waxay haystaan vitamin D3 cudur ma ku dhaco lafahooda ma xanuunayo waxba ma noqonayo stress depression ma ku dhacayo not depressed at all laakiin inta hooyo maskiina
shan cunugle cunug jiidaysa barafku ordaysa ninkii ma hayso aawe maqaayada fadhigo ku dirra gaba North America dabadeed lacagoo aruurina yoo u dira lacagoo aruurina qabiil tu yaala dadku gogowraca Canada u soo noqona caruurtii gaaladii ayaa saa u gurubsanayso because qabiil ku maqan no future no here no there waxaan ku faraxsanahay jahliyadda Soomaaliyeed aniga waxaan leeyahay jahliyadda Soomaaliyeed meel walba ee Canada ka joogto Minnesota way naga tageen way naga dambeeyeen goorma imaadeen Minnesota Soomaalida la soo dejiyay way qabaan way naga hormareen goortay MB iyo counselor ee doorteen ma dhaweyn anagii oo imaanay before 19 inta dagaalkii dhicin inta dagaalka la kas abuurnay waxaan ku faraxsanahay inay Soomaali mid tahay waxaan rajaynayaa inay ragga ballan qaadaan eena burufta iyo rabshada iyo darada naga dhaafaan eena madeeyaan oo ilmaheena la noo badbaajaan hadda waxaan taaganahay baryo caruurtii jeelasha ku jiray kuwii naga dhintay noo badbaaja kuwii dhinta u duceeya kuwii noolna gacmaha noo soo qabta kuwii jaamacadaha iskuulaadka baxana shaqo noogu raadiya waxaan leeyahay walaalkay Yaxye waa mahadsantahay nin fiicanna waa tahay kartina waa leedahay annaga haddaanu nahay haweenka aniga waxaan represent gareynayaa haweenkii ama hooyooyinka reer Toronto waxaan ballan qaadaynaa inaan ku daba istaagayno adoo danaheena fiirinayo caruurteena danahooda fiirinayo waxba kaama hagranayno contributionka waa ku fiicannahay ragga waa uga fiicannahay waan ku contribute gareynaynaa caruurteena ku dadaal nawaco haddaad aragtid in lagu soo qashqashaada ama lagu soo ataagayana nawaco si fiican hilada u kaseena waa ku hilinaynaa waanu ku hilinaynaa ma u hilinaynaa Yaxye Msamee thank you Soomaalnimadana hooya keento hooyana isku xirto haween haddaanu na Yaxyaan wadanaa ragga caawabo qashqashaada wado waxaan ka rajaynaynaa ama aan ka codsanaynaa inay na soo raacaan thank you soo raacayna ani kuwanka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo saaxiibkeen oo magaalo fog naga maqan oo jooga Edmonton Alberta barnaamijkan qayb weyn oo laxad la ka qaatay farshaxanka weyn ee taqaaniin Amiin Caamir Amiin iyo Mama Zainab waxaan leenahay thank you iyo dhammaan Amiin family mahadsanidin waxaan u yeerayaa markana dhinaca waxaan u noqonayaa youthka iyo dhalinyarada gabar yar ayaan u yeerayaa oo Soomaali ah oo marna uu ahay abti marna uu ahay adeer waa Hodan Maxamuud Nuur Said Tirka Hodan ku soo dhawow Hodan waxay ka hadli doontaa Thank you. Hello everybody. Hello. First of all, can we give a huge congratulations and a thank you to this young group that performed for us today. They did an amazing job. Yeah. Yes, keep the Somali culture alive. They were amazing. On behalf of everybody, I'd like to say thank you very much. Round of applause. Thank you. I would like to speak about one man who can bring so many people together in one room today. People from the United States, people from right here out west in Hamilton, people in Edmonton, old, young, mothers, fathers, siblings, youth. One man can do that, and that is Yaxye Hamira. Let me just say I'm so honored to be here today to see such a group of diverse people here unified for Somalia and here supporting Abdi Yaxye. It's truly a pleasure. I would like to take a few moments just to speak about the many credentials that he has and what he has done for our community and just why he is here today and sitting on this table and why so many people have come here to show him such great respect and support. So, the newly elected chairman of the Somali Canadian community, Yaxye Hamira, yes, thousands of Somalis have come to Canada over the last 26 years fleeing conflict and civil war.
Since then, Somali agencies have been formed with the intention of helping and resettling those who have arrived, making sure that they understand and learn how to navigate within Canada. Now, there are more than 50 registered nonprofit communities in Toronto that focus on Somali communities. Unfortunately, as many of you know, most of these agencies still operate based on the histories of previous Somali conflict. As many of you are aware, Abdi Yahya's recent election as the chairman of the Somali Canadian community is a testament to a desire of unity for Somalis across Canada. This is the first time Somalis have voted for someone outside of clan affiliation. Okay. Huge. And this is the first time Somalis have voted for a leader based on a shared vision of Somali Nimo. Round of applause for that. Unification. Even though Canada has provided a new home to many, is not consulted with us on the best ways to support and help grow our community. The Somali community in Canada does not have a strong unified voice to make political decisions. It is time to begin to cultivate that voice for all of us who are struggling with whether as previously or newly immigrated refugees or immigrants. It is critical that we begin to advocate for ourselves. Now let me tell you all something. Abdi Yahya has defended the rights of all Somalis for much of his life. Many of you may or may not be aware, but the people in this room can speak on how often his relationships go beyond conflicts. He has done so much for the community and brought together Somali people despite politics or clan. He has spent his life making sure people who need it get help. He deeply believes in Somalis coming together under the banner of unity across territories, across conflict, and across all obstacles. Today, in congratulating Abdi Yahya in his election, we have an opportunity to work together to lay conflicts to rest. Today, we have an opportunity to think about the kind of community as Somalis we want to have, the kind of political influence as Somalis we would like to have that is necessary to keep our families safe and healthy. So think long and hard, because today we begin to imagine another kind of future for the Somali Canadian community, one that uses Somali Nimo to bring together and puts old wounds to rest. Now, round of applause for that. Now, on a personal note, I would like to speak on behalf of myself. Abdi Yahya has been a father figure to me for many years. I've known him for over a decade. I cannot say that there is a more caring, more understanding, more advanced man, and who is more deserving of this title. He's an amazing person, and if I can speak on the youth, if I can speak on all the males who are misguided and misinformed and in jail and who have nobody to look up to, there's no one better to look up to than this man, and we need somebody strong to target our male youth as well. So let's all give a round of applause and respect this one man who's brought everyone together. Thank you. aan ku soo dhaweeyo Bakin Cabdirashiid Bakin oo ka mid ah baaweynta isboortiga maamulkooda ilaa iyo Soomaaliya ka soo shaqeeyay ilaa iyo wadankan aan joogno mas'uul sarana ka ah Bakin ku soo dhawow si uu hambalyo iyo bogaadin ugu diro saaxiibkiis Yahya Xasan Mire. aad baa ku salaamay UK runtii caawa waxay tahay farxad qaali ah in ay Yahya Mire aan caawa halkaan ka soo qayb galo calaamasaarka waxaana leeyahay anoo runtii ka hadlaya Yahya wadankan waxaan ku garanayay ilaa 25 sano in ka badan waa ninkan ilaa maalintaan bartay ilaa caawa ay tahay 2015 ay tahay wax isbedela macnaha walaaltinimadiisa ixtiraamkiisa dhaqankiisa aan hal marna isbedel aan ka arag marka runtii ummadda Soomaaliyeed ee reer Canada waxaan leenahay anoo ku hadlaya magacooda caawa waxaan dooranay ninkii Soomaali isu keeninaha Soomaali matalinaha 25 sano aan aqaanana
runtii dhaqankiisa iyo walaaltinimadiisa iyo afmacaankiisa iyo soo dhoweyntiisaba ay ahayd hal isbedel aan lahayn marka runtii waxaan ku leeyahay mirax yaxya mire oo runtii reer miran aan garanayo oo meel dheer oo qiimada ka soo jeeda marka waxaan ku leeyahay mire walaal aad baan kugu faraxsanahay waana ku soo dhoweynayaa runtiina sidii ay gabadhii sheegtaba waxaan kula galab taagan annaguna dhinacii gabadheeta ragga inaan kaa dhicinno aanaa runtii nin actifena waa ahay inaan kula shaqeeyo without condition la-aan aan kula shaqeeyo si soomaalinimadii iyo sidii aan isugu keeni lahayd dowladda soomaaliyana hadday maqlaysana waxaan codsanaynaa ayagana aqoonsiga ninkaan aqoonsannay inay ayagana naga aqbalaan nala aqoonsadaan runtii intii maanta halkaa joogta oo soomaali oo dhan oo dhegaysan macnaha waxaa weeye waxaan ka codsanaynaa soomaali waa dowladda soomaaliyana in aqoonsiga haddaan reer Canada aan aqoonsannay yaxya mire oo aan u aqoonsannay inuu nabatalo annaga mas-uul laga yahay inaad idinkuna naga aqbashaan kana codsanayno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh inuu codsigaas naga aqbalo nagana aqbalaado marka runtii waxaan farxad u leeyahay farxad saay aan ugu faraxsanahay xafladan raggii soo qabaqaabiyey oo runtii aad iyo aad xaflad looga soo shaqeeyay u eg ayagana waxaan leeyahay ma soo wabi karo siduu UK ba sheegay oo maamul ka mid ahaa kulligiin waxaan leeyahay rag iyo gabdho waxaan leenahay aad ba u mahadsantihiin halkaana waxaan runtii u mahadcelinayaa media oo ah Soomaalida ku maamaado dhagaxna meel loo ku dhaca dhawaaqna meel dheer buu gaaraa mediaha oo ugu horeeyo Maxamed Daahir oo runtii ah odaygii telefishinkii waddankan iyo raadiyihii ugu horeeyay ka aasaasay Bakri oo asagana runtii ah ragga ku xigay iyo Xamed Cabdullaahi oo runtii asagana hawriyaashii hore oo la shaqeyn jiray oo raadiyihii Soomaaliya ka shaqeyn jiray kulliga waxaan leenahay oo Somali Cable Universal TV kulligan waxaan leenahay aad ba mahadsantihiin caaw ka soo qayb gasheen aan la soo dhaweynaysaan ninka odagayna aan calaamad saarayna caawa kuna soo dhaweynayna magaalada Toronto ahna ninkii ragga Toronto aasaasay odayaashii Toronto ahaa marka waxaan ku leeyahay walaalaah mire welcome baan ku leeyahay aad baan ku mahadcelinayaa
Go
gudoomiyaha gala Canada dhalinyarada cusub ee soo gashay Cabdi Fataax Mohamed Miyo Bojo markii hore waxay ahayd gala Canada laakiin hadda waxaan idhay qabsada Canada daaba soo gashay marka Bojo oo ku hadlaaya dhammaan dhalinyarada cusub waxaan leeyahay ku soo dhawow Bojo وسلامتي مدنيا اليوم روين سيد الشرفت الأضواء سوق بشان حلفتان قروح ذو بدن على مسارك قدوميها جالية الصوماليات وإنه ده بسوقيسين أنا قلت الله دمان اللي يرضى قال كندا ما قاعد مهم دوغور رئيس قدوميها أنا وحن كحرين الشروط وجهرين باهيدا قبان دتك soo galootiga ah ee aan haysan in cadeen ay la hortagaan maxkamadda marka ay raadinayaan sharciyada waa gudoomiyaha ugu horeyn qodobadaasina wax ka qabta midda kale waxaan idin sheegayaa shacabkan ku dhaqan magaalada Toronto aan ugu imaanay haddii aan nahay dhalinyarada gala Canada waxaan raadinaynay inaan aragno Soomaali isku duuban oo annagana soo dhaweysa baahida dadka cusubna wax ka qabata balse lama helin nasiib darro maanta ayaan helnay caawo waxa halkaan ugu imaateen oo aad waqtigiin u soo galiseen gudoomiyaha Yaxya inuu baahidaas daboolo adinkana aad garabkiisa noqotaan kaligiis wax ma qaban karo haddii aan nahay dhalinyarada gala Canada oo aan ay gudoomiyahoodana garabkiisa ayaan taaganahay xilliyadii ugu dambeeyay wadankan 4 sano ugu dambeysay waxaan ku soo galnay ku dhawaad 2,000 oo dhalinyaro ah wadankan wax badan wax ka sameeyay waa dareemi kartiin dadkii hore ee wax soo qabtay isboortiga qaybaha fanka laakiin se maanta ku ugu firfircoon ee alsiidi boorsada wata shaqada uu ka lahayo waa gala Canada aad ayay presented kuwii hore ee seexdayna waxaan leenahay inaa kacdaan gudoomiyaha taageertaan kuwa xumaanta banaanka la taagana inay gudoomiyaha soo taageeraan waxaan kale u mahad celinayaa anigoo soo gaabinaya khudbada dhalinyarada isboortiga kuwa fanaaniinta gabdhaha iyo rag dadka ganacsiga ee Toronto sida ay u taageereen gudoomiyaha Yaxye waxaan leeyahay gudoomiyaha Yaxye ku soo dhawow xil adag oo aan ahayn marada garabka ku saaran oo kale waa adag yahay xilkan waana ku hambalyeeyaa Ilaahay garabkaaga ha galo annagoo hadaan nahay dhalinyarada gala Canada garabkaaga ayaa taaganahay gool ayaan ku leeyahay Yaxye waa maasintiin mahadsanid Bojo iyo dhammaan groupka gala Canada oo idil oo uu ka mid ahaa fanaankii heesay jecelow waxaa dhalinyaro run ahaantii siduu u sheegay Bojo aad iyo aad u shaqaysta una dadaala wada dheerna u soo maray Canada run ahaantii sida fudud anaga aan ku nimid kumaysa imaan waxay ku yimaadeen si adag waxaa kaloo jirta waliba wiilal iyo gabdho inta yimid xitaa badankooda inay ku soo galeen lug ay ku soo galeen Canada oo ay soo socdeen macnaha hours ay soo lugeynayeen dhul xuduud baadiye ah macnaha waqti adag ay soo mareen markay halka yimaadaan waxay muujiyeen dadaal weyn dadaalkaas ayaa waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo kula magaaladan agency-yo shaqada geysa oo la yiraahdo A&M Employment Service waa Cabdinuur oo dhinacaas taagan waxaan jeclaan lahaa inuu istaago Cabdinuur hadda istaagi kartid fadlan Cabdinuur waa ninka geeyay dhalinyaradaas oo dhan ee wadanka soo gashay he's the only man oo shaqo geeyay oo kulligood hubiyay inay shaqaystaan isla markaana ka caawiya waxyaalo kasta oo ay u baahan yihiin aan u yeero markana dhinacii odayaashaan u soo noqdo aan u yeero odayaal dhaqameedkeena waa Hilowle Abukar oo ka mid ah odayaasha magaalada Toronto Hilowle waliba dhalinyarada si kale ay u yaqaanaan waa Afro aabihiis marka waa intaas loo sheego Hilowle waxaan leeyahay ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوض حالك سيدي واكا قدسية وحل يسلا ربا هورتي إني في عينين سانا لغو قادا
muddaa horta qandhana haysa geed qandho la yidhaha uma ciil qabno soomaalida meeshaan degan haddaanna laakiin maantay caafimaadaan u jeednaa caafimaad waa aadaan ugu faraxsanahay caawa sida muuqato waxaan marka hore u mahadcelinayaa ragga saan u soo abaabulo quruxda badan leh gabar iyo wiil iyo oday iyo ganacsade iyo wadaadadayna isu keena caawa inaan isku meel isku bas inaan saaranahay caawa waa la hubaa ninkan aan u dooranno odagaa la yidhaaho Mr. Yaxye waxaa laga soo shaqaynaya muddo dheer aan sahlanayn nin na wadi karo wax badanaa community furnay aan kala jiidanay qaraabo u suubsanay finally maantay hal basaan saaranahay sida muuqato waa nin noo dhaxay karo aan islahayn waa dheelinayaa marka ma ku dareemayno inuu dheeli doono waana waxa aan u dooranay arbiter fiican oo noo noqdo muddaana arrintan laga shaqaynaya ma ahan ha u malaynina wax hal beri iyo laba beri iyo saddex beri lagu sameeyey yaal badanaa ka soo shaqeeyay hawshan waana la isku raacay waxaan u sheegaynaa marka dadka howlahan ay hoos tegi doonto ee ah dowladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaha waxaan ka codsanaynaa meeshaan dhib badan aan ugu qabtay ninkii isku soo celi lahayne waxaan u dooranay ninkan Yaxya waxaa laga rabaa marka dowladda Soomaaliya arrintan ayadana dana ugu jirto unukana dana noogu jirto waxaa la rabaa dadkan sidii loo rari lahay oo wax barteena la iska rabaa oo wadankii loogu celi lahay ay wadankii u anfici lahaayeen waana la dadaalaynaa marka garabkiina la galo Yaxye waxaan ku leenahay soo dhawow welcome aan ku leenahay welcome awsha maasha Zahoor Habib oo ka shaqeysay project hop hadda ka hor Zahoor waa gabar Soomaaliyeed oo markastana ka shaqeysa wanaaga waxaan leenahay ku soo dhawow Zahoor Assalamu alaikum dhamaantiin waan wada salaamayaa waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka anigu waxaan ka yimid all the way Scarborough waa ogtihiin waxaan ahayna laakiin waxaan caawa halkan u imid inaan taageero walaalkay Yaxye maadaama uu Soomaalida dhalinyarada Soomaalida isku wada keenayo oo meel u soo wada jeedinayo oo maxay hayday caruurteena yaryar ee ama dhibaataysan ama jeelasha ku jira ama hooyooyinka dhibaataysan oo wax u qabanayo anigu markasta waxaan ahay taageerahaaga marka xiga waxaan idin leeyahay qof kasta horta waayihiisa laabta ku haysto laakiin se kulligeen wada Soomaali baan nahay meel baalana ka wada nimid markaan wadada marayno waxaan nahay inanka hayre madow islaanta madow waxaas ma wada nahay moogtahay laakiin se waxay naga dhaxeeyo magaca Soomaalinimada ilaahay waxaan ka baryayaa sida maxay heeday ugu wanaagsan inaynu u wada shaqeyno haddeen nahay Soomaalida degan Canada marka waxaan idinku guubaabinayaa inay jiraan maxay heeday waxyaabo badan oo aynu wada qabsan kari lahayn haddeen isku nimaadno marka ragga iyo dumarka midna anigu waxba kuma oranayo dumarkuna way dhibaataysan yihiin ragguna way dhibaataysan yihiin marka insha Allah ilaahay dhibaatada haynaga dhibaabiyo
waan idin soo ducaynayaa inoo soo wada duceeya inuu wadankii ilaahay inoo wadaajiyo meel kastoo ka timaadeen waxa kaloo idin sheegayaa marka sidan oo kale la isugu yimaado dee dadku isku yimaadaan waxbaa la isweydaarsadaa waa la isku soo dhawaadaa marka anagu rees kaar baan nahay noo yimaada anaguna waan idin imanaynaa marka dadka aad u baahan tahay volunteer-kana iskaar baran qaar kaga soo dar please intaasaan kusoo gabagabaynaya waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid Zahuur xilka lagu dhiibayna waxaan leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo waxaan jeclahay inaan u yeero dhinaca dhalinyarada anoo ku noqonaya Cabdikariim Cumar Xuseen oo ah wiil dhalinyaro ah oo wiilkaas ka soo socda dhinacayga midigta soo dhaweeya kadibna waxaanu noqon doonaa qaybaheennii kala barnaamijka soo dhawow Cabdikariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وان سلام يا بلشوين تهالكن اسكوت مدي واحد عاوز اسكوت مدين كله فرحة مقعي سوماليات بعد اسكوت بعدين كله وين بسلانا في ليايو قبيل يحيون كبحني أول واحد اسكوي ما يشرون ما في ليا هذا معمول هبل بينه مقعاوين نايو عاون كفر أحسن يا دان دلير لماذا أنا كهاد ليا دلير تطرنو مركا واحد ما هاد نقبل يستاج واحد كلهم ما نستاجين أنا هذا الكسوق قابنيا waxaan u mahad celinayaa mudane Yaxye Xasan Jaamac Mire Xasan Mire Allah uu xilka u fududeydiyo waxaan idin sheegayaa wax kale uma soo istaagin inteen halkaas kugu fadhnay Ilaahay baa nabadiyay maanta waxaan u maleynayaa qabiil walba aad ka joogtaan alxamdulillah haddaynu inagu garab istaagno wax noqonayaa marka mudanaha waa inaynu garab istaagno maanta halkan kalena waxaan uga mahadnaqayaa horta Amiin Caamir weligay ma arag meel lama istaagin laakiin waan arkaa ninkaas Soomaaliya dhan buu hadlaa Allah barakeeyo cimrigiisa Allah fogeeyo yarkii dhalinyarta Keenadana waan u mahadnaqayaa yarkii gudoomiye istaagay waxa kaloo jira oday Xasan Diiriyo familkeena isaguna halka fadhiya dhalinyarta gale Keenada wuxuu sameeyaa warqadaha uu cadeeyaa qabiilkooga intii sheegana soo kale marka inaguna aynu garab istaagno mudanaha Allah xilka la qabto salaam badan oo North America meel walba ka socota waxaan kale oo halkan uga mahadnaqayaa Bashiir Abuukar iyo wiilkii la socdo Washington DC ka yimiday safar dheer bay soo galeen Bashiir Abuukarna waa walaalkay Allah ciiseeyo cimrigiisana Allah fogeeyo dhamaantiina wad mahadsantiin qabiilna aan iska deeyno hadda Soomaaliya aynu wada waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan rag iyo dumar intiina ka soo qayb gashay xafladda qaybo kale oo entertainment ah ayaan u gudbi doonaa iyo ciyaaro hidda iyo dhaqan ah qofkii misgareeyay qaybtii hore qaybta labaad ayuu u yeelan doonaa fursad uu ku daawado saaxiibkay Axmed Cali Kaar oo fadhiya hortayda dhinaca midig oo muddo dheer ka hadlin meel ayaan jeclahay inaan u yeero waraxmatullaah waa mahadsantihiin walaalayaal sida la ii sharfay ma aqaan shaqada igraan lahayd wax badan meel kama hadlina umaleynaan maanta waxaan ku faraxsanahay caawa waxaan ku faraxsanahay Yaxye Xasan Mire in loo dhiibay shaqo uu ka bixi karo Soomaaliya ogaada qofka shaqo kasta loo dhiibay ma waa inuu ka bixi karaa Yaxye waa nin shaqadaas ka bixi kara waa nin isku keeni kara dadka waa nin dhisi kara bridgeska naga go'an marka waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan wixii hore loo dhihi lahaa waa loo yiri Yaxye waxaan ka rabnaa saaxib bundooyinka inaad dhistid Soomaali waa kala tagtay adaa la rabaa inaad keento saaxib annagana waa ku garab taaganahay waana mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay salaamu calaykum waraxmatullaah dhinaca entertainmentiga ayaan u noqonaynaa markaan Kaysar iyo heeso wadani ah mayga ayaan u dhiibi doonaa isaga la wareegi doonaa Kaysar هدي دد Soomaali badan oo wada farxsan soo jecel isku wada dhex jiro ma sha Allah mid kalena waa arkay Yaxye Xasan oo hambaleenaya 114 waxaan leenahay aan ku wada raacno walaalkeen tan xigto waqtiga inkastoo gaaban yahay heesta halkan ka qaaday haduu Ilaahay yiraahdo waa hees wadaniye waxay soo baxday bisha afraad hadda la soo dhaafayna Jimmy Sheekh Muumin
laxamiisteen weyn ayaa suubiyay heesta waxay ka hadlaysaa dhulka la xoogayo baddan xoog lagu haysto ummadda dhibaataysan dadka la qaxinayo ayay ka hadlaysaa iyo dadkeena is-haysto oo qabiilku isku tilmaamayo iyo in aan maanta naanay dad xurooway oo Soomaaliye dawlad sax aan haysano laakiin wali qabiilkan ku wada dhex jiro Di khadaxdeena
kale xigto iska dhaafa xarbiga. waxaa la soo gaaray waqtigii aan sugaynay inuu inoo hadlo gudoomiyaheenna cusub ee jaaliyadda ama aan dhaho uguba horeeyay waayo maanan lahayn hadda ka hor jaaliyad guud oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay inuu noqdo ama Ilaahay uga baryaaya insha Allah kii dadka isu keena sida heeska uu tilmaamayay inta aanan Yaxye ku soo dhaweyn microphone-ka waxaan jeclahay kooxda hidaha iyo dhaqanka inay soo koraan xagga kore. No
waa hagaaga mahadsanidin mar kale guud ahaanba dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay caleemasaarka gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Canada mudane Yaxye Xasan Mire sidaan horeba u sheegay waa habeen taariikheed waa habeen Soomaalida reer Canada ay fariin u dirtay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan muujinay midnimo ballaaran waa markii labaad ee ay Soomaalidu muujiso midnimo aan loo kala harin gabagabada barnaamijka ayaan soo gaadhnay waxaan jeclahay bal in aan in yar idin la qaybsado taariikh nololeedka gudoomiyaha jaaliyadda qowmiyadda Soomaalida ee dalkani wuxuu ku dhashay magaalada Wardheer waa my hometown ee gobolka Doolo ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan idhahnaa haddaan reer Wardheer nahay mar hadduu cadkaba camuudda ku dhaco caadada reer Wardheer lamaba cuno wuxuu ku dhashay dabcan magaalo taariikhi ah oo sugaanta Soomaaliyeed iyo halgankii gobonnimo doon ee dalkeenaba qayb wanaagsan ka qaadatay waxaan soo dhaweynayaa unu mahadcelinayaa dhalinyarada isboortiga oo midnimo aan runtii lagu tilmaami karin barnaamij gaaban ka muujiyay dalkeennan Canada suurtana geliyay in aynu ku yeelano xildhibaan golaha looga taliya dalkan ee baarlamaanka dalka Canada waxaan ka cudur daaranaynaa gabi ahaanba fanaaniinta ka soo qayb gali waayay iyadoo ogtihiin inuu waqtigu qabow yahay oo hawadu aad u xun tahay wuxuu ka soo shaqeeyay meelo aad u kala duwan oo runtii aan ku soo koobi karin balse dugsiga hoose wuxuu ku soo qaatay iskuulka la yiraahdo Najax oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena secondary school kuwa dugsigii caanka ahaa Jamaal Cabdinaasir ee magaalada Muqdisho shahaadada BA wuxuu ku qaatay oo waliba journalism xadka iyagu soo galay wuxuu ku qaatay dalkan Canada wuxuu ku qaatay aan raahdo jaamacadii dalka Soomaaliya ee jaamacadii ummadda yaana hadal idinku daalinin waxbarasho fara badan oo dibloma iyo certificate intaba leh wuxuu ka qaatay dalkan wuxuu lahaan jiray ururo bulsho oo u qidmeeya gabi ahaanba dadka Soomaalida ee qurba jooga ah dawladda ku meel gaarka ah ee Sheekh Shariif waxay u magacawday u qaybsamaha dalka Angola ee dalkeena Soomaaliya wuxuu Yaxye ummadda Soomaaliyeed ee qurba jooga ka yahay muwaadin ay u siman tahay Soomaalidu sida ay qireen xog buuxda oo aan la yeeshay gabi ahaanba dad kala duwan oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada waxaanu mahad gaar u celinaynaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee aad horseedka u noqoteen dadka Soomaaliyeed ee qurba jooga inay noqdaan kuwa iyagu wax qabsada tilmaanna u noqda Soomaalida inteeda kale meel kasta oo ay ku nooshahay ila soo dhaweeya gudoomiyaheena cusub ee aan dooranay ee hogaamin doona qurba joogta Soomaalida gobol kasta ka yimaada ee dalkani mudane Yaxye oo aan filayo in uu ka soo bixi doono gabi ahaanba hawlaha aynu caaw caleema saarnay ila soo dhaweeya saaxiibayaal dhammaan madaxda shabaarsta leh odayaasha waxgaradka culimaadudiinka haweenka dhalinyarada aqoon-yahanada waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullah salaam bacdigeed waxaan u malaynayaa waa habeenkii labaad oo mikrafoon aan ka hadlo laakiin saaxiibada waxay siiyeen practice badan imtixaano badanaa laga qaaday laakiin weli waa waxbaa jira waxaan aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha quruxda badan leh ee caawa qabowgan dhacaya ii hooy inay ii yimaadaan ay ii hambalyayaan
waxaa moodaa wiilasha inay ka badan yihiin haddaan isweydiiyey anigaba waxaan ahay single father mudanayaal iyo marwooyin shaqadan aad u cayaarteen oo aad u sabciseen maaha shaqo fudud soomaalidanu dad xun maaha laakiin waa oral society way hadlaan laakiin calolku qaad ma leh waddankan markaan imid waxaan ahayn 70 qofood haddana waxaan nahay 100,000 oo qof waxaan garan la'ahay in anaga wax naga qaldan yihiin iyo inuu systemka aan la qabsan weyn maxaa yeelay ilaa maanta qof ma duugan karno ninka Pakistaanka ee wada vaanka haddaan la siin 5,000 meydka ma dejinayo waa calol xumo waay nin ajnabiya inuu business naga suubiyo markii qof naga dhinto kulligay qaaraan aan raadino waa wax laga fiican yahay waxaan ku dadaalaynaa ama aan ballan qaadayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in aan noqono kuwa meydkooda duugan kara 100 business ee furan ee markii loogu tago qabiilka in wax lagu aruuriyo si degdeg u soo dhiiba in ay bilaabaan hadda qaaraanka Soomaalida inay si shuruud la'aan u dhiibaan waxaan ku dadaalaynaa inaan qabanno inaanan dawlad lacag ka raadsan sababtoo ah qofka markuu dawarsanayo waa laga fiican yahay laakiin 100,000 oo business aan leenahay qofkii dollar haddaan ka qaadna asana wax ku dhimayso annagana waxbaan ku qabsanayna waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa saaxiibkay Cabdinuur oo nin yar oo dhalinyaro ah oo 160 qofood shaqo siiyay kaligiis waxaa sidoo kale mahad leh Nuuraaye oo asagana nin allaala ninkii aan waxaysan makhaayadiisa uu ka cuno waa dad ku dayasho mudan waa soo dhaafnay waqtigii aan isjiidan jirin Soomaaliya maanta waxa ay la socon weyday oo ay la dhutinayso waa dhibaato annaga naga timid markii xoogaa yar oo dhibaato Soomaaliya ka dhacday haddaan lacag u xawilno oo tikniga ku gato asna waxba faa'iido maayo annagana dhibaato noogu jirto walaalayaal waxaan idinku mahadcelinayaa mar labaad sida sharafta leh walaalnimada Soomaalinimada qalbi wanaagsanaanta aad igu timaadeen kulligay waxaan nahay hal famil kulligay waxaan leenahay hal magac waddankan madow baan ka nahay dawlad goboleed iyo dawlad iyo federaal ma kala lihin nin walba Soomaaliya meeshuu rabo ku noolaan kara waxa kaliya oo u baahanahay waxay tahay in tanaasul la suubiyo oo la iscafiyo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa gabdhaha sharafta leh ee walaalahaya ee saaka soo kacay howlkan sida u qurxiyeen aad u jeedaa aan ninna waxba ku siineen lacag badan aan gashay howlkan kharash badan aan galay ilaa hadda anigu ma ogi waxa baxshay waxaan ka rabnaa walaalayaalow qof walba qofka kale inuu arxamo dariska walaalnimada inay wax walba aan ziyaadino maxaa yeelay annaga haddaan waxba isku qaban nin wax noo qabanaya ma leh hooyooyinka masaakiinta ay dhibaataysan waa inaan la ooynaa waxaan wadnaa barnaamijyo badan ilmaha xabsiga ku jira inaan imaamada ugu geyna xabiska
kuwa iskoolka daroobgareeyey inaan tuutarinu suubinno hooyooyinka dhibaataysan inaanu gacan qabanno waxaasoo dhan liiskiina ugu jirtaa laakiin idinka idinka rabnaa inaadna gacan qabataan nimankii way tabar beeleen dhaqaale ma jiro idinka laba waqtiyaa lacagta idiin soo dhacdaa 20 iyo 30 laakiin annaga waxba nooma soo dhacaan marka almiino aan isla cunno waxa ilmahana isla korino wabilaahi tawfiiq
Soomaalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Soomaalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay habiilba kala geeyay inka saarila waa kan nabadgoriyo waa kan isku keene waa kan habiilba kala geeyay inka saarila waa kan nabadgoriyo waa kan isku keene waa kan Karimkan barinayo karama ku sarnaye kaalmeeya noqo Karimkan barinayo karama ku sarnaye kaalmeeya noqo Kabeebay ciyaara saylada kalwiya beeray koru qaada saylici ku wayrax kullana ku darso shoobana kalmayso haddii Elohiya aha haddii Elohiya aha wasaqa kulayli bakar hakordhabo erigabo hakahlo wilwila ku saaxib dhankada ku booda wareegtay ku kalla haddii Elohiya aha haddii Elohiya aha Karimkan barinayo karama ku sarnaye kaalmeeya noqo Karimkan barinayo karama ku sarnaye kaalmeeya noqo Kabeebay ciyaara saylada kalwiya beeray koru qaada saylici ku wayrax kullana ku darso shoobana kalmayso haddii Elohiya aha haddii Elohiya aha wasaqa kulayli bakar hakordhabo erigabo hakahlo wilwila ku saaxib dhankada ku booda wareegtay ku kalla haddii